waxaa si rasmi ah magaalada Muqdisho loogu soo xiray shirkii fadhiga wasiirada iyo kalfadhiga golaha fulinta ee Akadeemiyad Goboleedka Afka Soomaaliga AGA kaasoo socda muddo 4 maalmood ah. Munaasabadda xiritaanka shirka waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka, Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Wasiir Ku-xigeenka Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlad Deegaanka Soomaalida, ergeyga AGA ee dalka Kenya, mas'uuliyiin ka socotay dalalka xubnaha ka ah Akadeemiyadda, guddiga AGA iyo marti sharaf kale. Inta uu socday shirka ayaa si qoto dheer looga dooday horumarinta iyo tayeenta afka Soomaaliga ah, xoojinta cilmi baarista la xiriirta afka, ilaalinta hidaha iyo dhaqanka, sare u qaadidda wada shaqaynta dalalka ku midaysan Akadeemiyadda. Gudoomiyaha Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga Macalin Saciid Saalax ayaa sheegay in shirku uu kusoo dhammaaday guul wax ku ool ah. hay-adaad wada ogtihiin oon maanta la isbarayn Akadeemiya Goboleed inta af Soomaaliga wadaagta ay waa isugu timi isku darsatay waxaa u hantiile ah oo ugu sarreeya hoggaanka madaxweynayaasha dalalka isku darsaday iyo deegaanadooda Soomaaliyeedba. Sidoo kale Wasiir Ku-xigeenka Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlad Deegaanka Soomaalida Salaad Dhabar Yuusuf iyo ergeyga AGA ee dalka Kenya Danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa goobta ka jeediyay khudbado ay ku bogaadiyeen doorka AGA ee horumarinta afka Soomaaliga ah iyo xoojinta iskaashiga heer gobol. Akadeemiyadan runtii oo midaynaysa dadkeenan Soomaalida guud ahaan waa mid ugu muhiimsaneed oo dowlad Soomaaliyeed ay hogaamin lahayd. Magacan luqadan af Soomaaliga waa luqad hodan ah. aniga maadaama aan helay fursad dhowr iyo 20 sano inaan la shaqeeyo dowlad Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed, markii aan damcay inaan wax aan qoro memoir, waxaan ogaaday qiimaha luqadan ay leedahay. marka waxaan go'aansaday anoo Soomaali ku qori kara mas Ingiriis ku qori karin af Soomaali ku qoro. Shirka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed rasmi ah oo lagu soo koobay qodobadii iyo go'aamadii laga gaaray, waxaana warmurtiyeedka warbaahinta u akhriyay Gudoomiye Ku-xigeenka Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga AGA Ismaaciil Cabdi Axmed. Kalfadhiga waxaa marti geliyay dowladda federaalka Soomaaliya oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Kalfadhiga waxaa lagu dhageystay warbixinada howlaha AGA iyo waayaha ku xeeran Akadeemiyadda, gaar ahaan muddadii sanadka iyo 3 bilood ahayd ee ay jirtay. waxaa laga dooday howlaha horyaala 3 sano ee soo socda 2026 oo ku jirno ilaa iyo 2028, waxaana ka soo baxay go'aanada iyo talooyinka soo socda. waxaa la dejiyay qorshe howleed guud oo AGA ay ku shaqeynayso 2025 oo ka soo gudubnay ilaa iyo 2028. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa dhankiisa xusay in go'aanada iyo talooyinka ka soo baxa shirka ay noqon doonaan kuwo wax ku ool ah. laakiin Akadeemiya Goboleedku ma ah, waa hay'ad ay wada leeyihiin dowlado ay wada leeyihiin, sida IGAD loo wada leeyahay, sida loo wada leeyahay ELECSO, sida loo wada leeyahay ASESCO, iyo sida xataa hay'adaha UN-ka loo wada leeyahay ayay tahay. marka maqaamkaas oo kale inay yeelato ayay u baahan tahay. marka asaas fiican baa u degan xeel dheerayaal runtii Soomaaliyeed hadda ugu horeeyo gudoomiyaha Macalin Saciid Saalax Axmed ayaa u soo howldaayay. ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa si rasmi ah u soo xiray shirka, isagoo ku ammaanay Akadeemiyadda iyo dalalka xubnaha ka ah dadaalkooda. waxaan rabaa bal hadalkayga kaftanka ka soo koob inaan ku bilaabo mahad ballaaran oo aan u soo jeedinayno odayaasha hawsha gacanta ku haya, qorshaha ay dejiyeen iyo yoolalka wax ku oolka ah ee ay sameeyeen. dabcan abaalkooda Soomaaliba xasuusan doonta. waxa iyana mudan in la bogaadiyo madaxda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha Djibouti oo intii qarankan Soomaaliyeed uu dhutinayay run ahaantii
u noqday Djibouti ka dhigay goob ay ku soo hirtaan dadka dhaqanka Soomaaliyeed iyo luqadda Soomaaliyeed mataqaana ay wali gaarka ka sii hayay barnaamijyada waaweyn ee halka lagu duubay ee abwaanadii waaweyn laga duubay baad ogtihiin akademiyada iyo bilowgeedii baad ogtihiin dee qarankii Soomaaliyeedna hadda wuu soo kabtay oo isaga ayaa hadda xarun u ah ayaan aadan ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.